السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا Mayabeauty channel kayga. هدا كل سبتهين channel ka. Make sure subscribe ka ina tabsatin. Subscribe to my channel inshallah. هدا don't see anything to do with arrimaha ku saabsan dumarka hablaha makeup ka qurxinta xijaabkiisa loo xidho arrimaha dumarka oo dhan vlogs ma arki doontiin waa ku arki doontiin xaggan inshallah marka subscribe gareeya anigu aad bii caawinaya subscribe-kiina marka ii daawada videoyaasha ii subscribe gareeyana inshallah waa channel aad u yar oo weli subscribe-kiigu maaha aad mu badno waayo channel kalan waan haystaa Maya Talks la yiraahdo kaas baa dad badan igu xiriirsan yihiin laakiin Mayabeauty in yar oo dada ayaa daawada laakiin alxamdulillah inshallah YouTube kan uu grow gareyn doonaa ii like gareeya ii comment gareeya ii subscribe gareeya xag waxaan u fadhiyaa dadka caawiyo gabdhaha Soomaaliyeed ee doonayaan inuu makeup ka bartaan skincare ka hadii noqoto skincare ka aad baan uga hadlaa makeup ka qurxinta dumarka oo dhan inshallah هاي لوبنا سبسكرايب كا maanta videogan waxa weeyaan makeup aad u fudud oo easy oo anybody kale inuu sameeyo hada step by step u follow gareysin videogan ilaa damaadka aad daawatiin videogan inshallah marka waa achieve gareyn kartiin loogan inuu kuna waa very simple makeup oo inay u qaatay marka asxaabta waan salaamay kusoo dhawaada channelkayga Mayabeauty inshallah haygii loobinana subscribe ka share ka asxaabta u dira hablaha kale u dira u faa'iideeya u dira si ay u bartaan makeup kan fudud aan maanta sameeyay oo aan eyeshadow aad u qurxoon aan isticmaalay oo very easy very simple way you don't think the sun was to me because we're very simple and easy lipska waxa weeyaan oo waxaan isticmaalay lipska waa lip liner iyo gloss clear gloss waan isticmaalay marka daawasho wacan inshallah xaga Instagram-ka Facebook-ka Snapchat-ka iga wala ad gareeya iga wala follow gareeya xaga hoosaan ugu soo qori doonaa products oo dhan maanta isticmaalayna xaga description-ka ayaan ku soo qori doonaa linkyada oo dhan alaabta oo dhan maanta isticmaalay linka xagaas ku qornaan doona linka uma taabsan kartiin waa iibsan kartiin inuu kuna brushes kan ka hadlayo products kan ka hadlayo waa wala gadan kartiin inshallah daawasho wacan okay waxaan ku bilaabi doonaa Vaseline inaan fururahayga because qalal weeyeen marka creamka wajiga already waan marsaday creamka wajiga aan marsado waxa weeyaan CeraVe gan horta waa not very good especially qofka haduu haysto waji qalayla I think videogaygii hore skincare aan ka hadlayay ayaan ka hadlay waxaan isticmaalay wajigayga marka waxaan sameynayaa marka I think xirabaha ayaan sameyn doonaa before aan xirabaha sameyn off camera baan doonayaa inaan xirabaha ugu sameeyo marka before waxaan jecelahay inaan marsado primerka aan marsanay maanta waxa weeyaan primerkan waxa weeyaan primer aad u fiican horta waan ka helaa waxa weeyaan Fenty Beauty hadaa heli kartiin ama saysan kartiin soo gata because horta aniga makeup-kayga markaan kan marsaday amazing buu noqday marka maanta waxaan sameeynaa waa makeup fudud oo aad u easy oo qof kasta la sameyn karo marka waa important in la ruuxo marka ruuxa productkiina aad u ruuxa marka sidaas ayaan wajiga u dul marinayaa sidaas waxaan isticmaalayaa brush yar baan doonayaa inaan sidaa u dul mariyo brushkan aad baan uga helaa brushkan waxaan only u isticmaalaan waxa weeyaan primerka markaan marsanayo primerkuna aad buu muhiim u yahay inaa makeup-ka ka hoosiisi like makeup-ka aad marsanaysid inuu noqdo layerka u horeeya inuu noqdo very important waan ka hadli doonaa makeup-yada si fiican laakiin maanta waxaan doonayaa inaan bas nii sheego uun productskan isticmaalayo iyo san makeup-ka u marsa inaan tuso maanta marka waxaan sameyn doonaa off camera waayo waxaan doonayaa inuu primerkuna wajigayga si fiican ugu qalalo oo dee si fiican u galo before aan foundationkii concealerkii wixii dhan aan marsado waa very important inaa aan base ka horeysiyo oo protect garanaya wajigayga
asxaabay waan iga soo wada noqday xiribihii baan soo sameeyey iminka I hope inaad ka hesheen xiribahaasaan u sameeyey. It's more natural, ma jecli inaan dramatic amba too much color inaan mariyo xiribahayga ma jecli, marka waa more natural consider and then it's so simple as well. So inshallah hadday iga codsatiin channelkayga waan sameyn doonaa sida xiribaha loo sameeyo inshallah. Marka waxaan doonayaa inaan foundationka marsado, ma doonayo maanta inaan sameeyo any correcting because ma loo yara baahno. Foundationka aan maanta isticmaalayo waxa weeye, laakiin foundationkan waa foundation aad u fiican. Foundationka aan maanta isticmaalayo waxa weeye NARS Natural Radiant Longwear Foundation. waa foundation aad u fiican hadda NARS ku dhow yahay amba I think waxaa laga helaa Sausages dukaanada waaweyn ayuu dukaanada aadka waaweyn ayuu ku haystaa station yar ama meel yar. NARS haddaa ka aragtid saasaa loo qoraana waa NARS. waa amazing weeyaan. So many years baan marsanayay foundationkan kan iyo kiisa kaleba ku kale cusub baa soo baxay inshallah kaana waan tusi doonaa markuu yimaado. aniga horta shadekii waxa weeye Macao markasta iibsadaa foundationkan haddaad isku shade nahayna da adiguna Macao waa marsanaysaa. waa kana waa inaa la sheegareeyo. Very important inaa foundationkaaga la sheegareeyo. brushkan aan isticmaali doonana waa brush aad u fiican oo Morphe brush weeye. Okay, waa kaas. marka brushka waan soo qaadayaa sidaas foundationka. saasaan dul marmarinayaa. marka waa kaas foundationkii ayaan wejiga oo dhan brushka ku isticmaalay. aniga horta waxaan believe garaysan yahay ilaa gacanta ka xanuunaysa ama gacanta ku daasho ma aha inaad tuujisid foundation isticmaalaysa markaasaa garanaysaa inaa si fiican foundationku. waxaan ku xigsiinayaa waa concealer. san yiriba maanta waa makeup fudud oo easya qof kastaba samayn karo. laba concealer ayaan marsanayaa. waxaan isticmaalayaa waxa weeyaan Pro Conceal baan isticmaalayaa. in the shadekayga waxa weeyaan Fawn baan isticmaalayaa. and then waxaan dul marinayaa waa Fenty Beauty sidan u brighten gareeyo under eyeskayga. so intaa hoostiisa ayaan sidaa u hoos marinayaa. hoostan waxaan u eegayaa muraayadeeda hoosta yaala marka igaraa lahaada haddaa yaabteen. marka indhaha hoostiisa in badan ma isticmaalno. jinkayga jinka and then sanka hoostiisa amba afka dushiisaba hareeraha xagga saasaan u marinayaa. marka usually saasaan u mariyaa concealerka indhaha hoostiisa. in badanna ma sameeyo because I feel like a little bit can go a long way. brushkan aan isticmaalin waxa weyn again Morphe brush number M173 ayaan isticmaalaa for my under eye iyo concealerka oo dhan ayaan saa u mari basically u isticmaalaa. anaka waan ka helaa brushkan inaan ku conceal gareeyo. I feel like beauty blenderka waan walina garanaysin beauty blenderka amba waan tusi karaa example beauty blender waa iska garanaysin beauty blenderka waa kan. waxaan dareemaa inuu productka oo dhan nuugo especially haddaa qoysiin. marka I prefer inaan isticmaalo brush. marka haddaa brushka sidaa ayar u isticmaashid productka oo dhan weli ku harsan yahay. just depend taas waa dad badan markay isticmaalaan concealerka iyo beauty blenderka sidaa u marmariyaan horeyba u blend garaysmaa because productkii oo dhan buu nuugay. marka brushka for example productka weli waa productka weli wuu ku yaalaa. productkuma markaa sidaa u marmarinana indhaha hoostiisa kor baan eegayaa sa indhaha hoostiisa si fiican mariya. marka sidaasaan u baahan nahay inaan isticmaalno brush yar oo lagu talagalay concealerka
insha allah. especially makeupkan iminka inaan si qurux badan u marsano weeyaan. insha allahna waxaan doonayaa inaan nii sameeyo classes, makeup classes ani baro sida makeupka loo mariyo. marka haddaad ka heshaan makeupkan fudud amba ma kuu dambeysaa haddaad doonayso ma kuu dambeysa ayaa beauty blenderka saa u taabsinaysaa, laakiin ma jecli inaan qoyo beauty blenderka. even haddaan doonayo inaan qoyo waxaan isticmaalayaa waxa weeyaan setting spray. so setting spray baan in yar saa ugu buufiyaa and then waan dul mariyaa, laakiin you don't need it, ma loo baahno biyo badan inaa beauty blenderkaaga ka buuxisid because wuu nuugayaa. okay, concealerkii waa kaas, waan dhameeyey concealerkii. saan yiriba haddaad doonaysid maca foundation brushka ayaa saa u dulmarin kartiin, amba waxaa isticmaali kartaa beauty blender, laakiin anigu foundation baa saa u dulmarinaya. that's it, simple, very quick, simple. marka waxaan doonaya inaan contourkii sameeyo. contourka maanta ma isku badanayo amba in badan blushkii iyo contourkii iyo wixii oo dhan ma isticmaalayo. contour iska yaroo simple oo just umaan sameynanaa, mid advance ma sameynano. markaas sleek makeup ayaan isticmaalanaa. sleek makeup waa affordable as well, waa heli kartiin dukaanada, ayaa ka heli kartiin boots oo kale, superdrug wala yaalaa. marka powder baan isticmaalanaa. marka kan shadekan baan isticmaalayaa, saasaan ku goynayaa contourka. waxaan isticmaalayaa brush lagu talagalina contourka, e4 la yirahdo, Morphe e4. saasaan in yarun baan daabgalinayaa, and then cheekboneka dushiisa lafta xaga ku yaala umaan saa u dulmarinayaa. okay, I hope inaa si fiican u arkaysiin, marka in badan maaha. waa kaas. waa arkaysiin baan u maleynayaa. already definition waa la arkayaa, defined contour. maanta ma concealerka ma hoos marinano, san yiriba maanta waxa weeyaan makeup fudud. marka waxaan doonayaa qof kasta inuu able inuu karo inuu makeupkan fudud maanta mariyo marsadana. marka usually waxaan iloobay concealerka hoosta markaan marinayaa. concealerka hoosta aan marinayona waxa weeyaan waxaan isticmaalaya Fenty Beauty san yiriba, shade 350 weeyaan. shadekan waxa weeyaan shade aad u light ah, that's why waxaan isticmaalnaa in yarun baan sidaa u marinanaa, just inuu na siiyo a little bit of brightness yaan u baahanahay. laakiin ka shadekaygu waa kan Fenty Beauty shadekayga waxa weeyaan 370. kaasna waa shadekayga, marka kaas and then waxaan jecel inaan dul mariyo kan oo bright kasii digaya. away brushkii again sidii markii hore sameynay. I think waan isku yara badiyeyba, maba jecliba intan yar. I mean ma jecli in badan inaan isticmaalo, waan isku yara badiyey. laakiin waxaan sameynaynaa ma maleynayaa beauty blenderkaan soo qaadanaynaa siduu productka oo dhan u qaado. beauty blenderka ayaan soo qaadanaa. marka waxaan isticmaalayaa setting spraygan baan isticmaalayaa. setting spray waa cusay baashani by the way, waa kaas beauty blenderkii saas dul marinana. marka daa hoostiisa ilaa iyo indhaha dushiisa. eyelidka ayaan marinaynaa waayo waxaan isticmaalaynaa eyeshadow.
marka waan dul marinaynaa as well xagaas. waxaan haddana soo qaadanaynaa brushkii contourka waayo contourkii naga yara baaba-aan malinayaa amba waxaan doonaa inaan sii define gareeyo markaas and then hoosta xaggaas oo dhan ayaan contour garananaa madaxa dushiisa. marka ku xiga powder baan isticmaalanaa. powderka indhaha hoostiisa ayaan marinaynaa, chinka, afka, meeshii oo dhan aan conceal garanay ayaan marinaynaa. powderka aan again jecel yahay aan so many years marsanayay waxa weeyaan Laura Mercier powder. Laura Mercier powder baan aad uga helaa, aad baan jecel. I don't think inaan ever bedelayo. waxa weeyaan baal aad u cajiiba oo ku qurxinaya. Laura Mercier kan marka powderkan waa translucent powder, marka waa very good. ana horta absolute favorite. waxaan isticmaalay marka beauty blender lagu talagalay inaa lagu mariyo powderka ayaan indhaha hoostiisa markaa marinaya. baashan waxaan u jecel yahay precision, wuxuu siinayaa exactly like meeshii aan marinaya oo dhan. baasha yarna aad baan u jecel yahay. beauty blender lagu talagalay powderka weeyaan oo Morphe baan kaana ka soo iibsaday. marka intuu powderku ingegayo waxaan doonayaa inaan quickly marsado eyeshadowgana waa seen yiri maanta ma isticmaalayo dramatic eyeshadow, ma isticmaalayo ku fudud easy. so waxaan isticmaalayaa probably one color baan isticmaali doonaa but two colors. palette aan isticmaalayna waxa weeyaan Anastasia Beverly Hills palette. palettekan waxa weeyaan paletka collaboration with Jackie Aina. waxa weeyaan palette yaro very good ah. color kasta waa ka helaysaan, horta waan ka hela aad color kaste. Jackie Aina waxa weeyaan inan kaloo youtuber oo madow gabar madow ah. marka waxaan isticmaalaya waan u maleynayaa edges baan u malaynaya credit. I'm not sure yet laakiin okay waxaan isticmaalayaa more brown baan isticmaalayaa more brown colorka brownka ayaan isticmaalayaa iyo maybe gold. dahabi horta bir hore bay igu dambeysay. dahabi baan isticmaalayaa maanta, brown iyo dahabi. so brownka u horeysa aan sameyn doono waxa weeyaan edges. markaan edges sameeyo cornerka and then credit baan isticmaali doonaa bunigan aadku buniga. and then waxaan isticmaali doonaa labada mid zamin baan isticmaali doonaa. marka daawasho waa aan ila daawada saan u sameeyo indhaha eyeshadowga ee simpleka, very simple. waxaan isticmaalayna waa brusheska lagu talagalay eyeshadowga Morphe brushes. waasaan yiri baan horta Morphe brushes aad baan jeceliyaa. marka edges baan horta marinanaa in the corners of my eyes. so right here kaasaan ka bilaabanaa and then saasaan u dul marinanaa. I hope inay arkaysin si fiican. inshallah weega soo socdaba waan sameyn doonaa eyeshadow, sida eyeshadowga loo marsado. haddaa doonaysiin kalaro gaar u ah, gaar ininka doonaysiin inaan mariyo isoo sheega xagga commentska kalaraha doonaysiin inaan mariyo. amba doonaysiin inaan baratiin cut crease loo sameeyo, amba kalarada buniga, amba sida loo mariyaba eyeshadowga, amba kalarada isku soo baxaya, kalarada lagu talagalay ama eyeshadowga sida loo marsadaba eyeshadow. because eyeshadowga waaba skill horta. eyeshadow waa skill because kalaraha lagu talagalay inaa la mariyo from light to dark bay yiraahdaan. waa 3 step. marka inshallah waan bari doonaa markaan gaarno xagga eyeshadowga. horta powderka odomaan iska soo masaxayaa. okay waxaan isticmaalayaa again waxa weeyaan Morphe brush aad weyn weeyaan oo
powderka oo dhan ayaan iskaga masaxayaa. creaska xaggan indhaha dushiisa xagga koonaha yar ayaan bunigii kasii madoobaa kii horeysay ayaan saa u mariyey, waan blend gareeyey. marka waan blend gareeyey, waan ka jaray videoga waayo because waa very long. marka I hope ina fahanteen. bas waxaan mariyuun creaska ayaan saa u dul mariyey laba color, brown iyo brown kasii darkera. marka brush kale ayaa markaa soo qaadanayaa, and then waan dusha ayaan sida colorkii brownka ahaa ayaan saa usoo qaadanayaa, and then dul marinayaa sidaan I don't know how to say in Somali, laakiin waan dul marinayaa si fiican bu markaa eyeshadow ugu qurux badnaanaya. waa arkaysiin baan u maleynayaa the difference between kan maadaama brushkan kale ku celiyey oon si fiican u kala brush gareeyey, and then kan imikan brushka isticmaalaya again, and then waan qurxinayaa. markaas si fiican buu colorka si fiican buu isha ugu qurux badnaanayaa. kii kale wuxuu ahaa creaska unbuu marayay, creaska unba si fiican u gelinayay colorka, laakiin imika waxaan doonayaa inaan sidaa u wala mariyo so indhaha usoo qurux badnaado. colorka marka indhaha oo dhan ayuu markaa si fiican u blend gareysmaya, blending weeyaan. si fiican baan u blend gareeyey oo brush lagu talagalay blend oo blendera, brush lagu blend gareeyaan soo qaatay. marka waan blend gareeyey labadii indho waan blend gareeyey. I hope inaad si fiican u arkaysiin. markaan blend gareeyey waxaan isticmaalayaa markaa colorkan zam isha lid balad isha ayaan saa u dul marinayaa. brush yar baan isticmaalayaa oo si fiican usoo qabsanaya. agaankan waxa waye Morphe M124 brush ayaan doonayaa inaan sidaa zamka soo qaato oon isha saa u dul mariyo. xagga yare lidka ayaan ayar saa u dul marinayaa. arkaysiin baan u maleynayaa waxa weeyaan glitterkan waa press glitter baan u maleynayaa. waa glitter yaroo aada u dahabi oo qurux badan. ayar tartiib unbaa saa loo mariyaa, isagun baa si fiican uu bixi doonaa. brushka ayar maanu marinayna inagu, waa kaas. isha kale ayaa markaa sameyn doonaa exactly the same saan marinay markii hore. inaan xagga hoose ku toojiyo dhexda ku toojiyay, laakiin waan sii waday waa caadi. laakiin waa kaas walaa qurxoon, waa very beautiful. I like it, very beautiful weeyaan. marka again waxaan soo qaadanayaa fluffy brushkan fluffiga waan ku blend garanaya. marka colorka labadii color baan soo qaadanayaa. horta colorkan edgeska aadko lighterka ayaan saa u dul marinayaa. colorkii baan soo celinayaa imika, and then isha kalena saasaan u sameynayaa. labadii color baan soo celinayaa, and then credit brownkii ayaan soo qaadanayaa, saa u dul marinayaa, and then sidaas. I'm sure inaa arkaysiin. blending maan imika sameynayaa, saas u blend garanayaa. horta brushkan markaan isticmaali ma moodaba inaan wax marinayo shayda, because waa saas
waa very nice brushkani. brusheska oo danan haysta waa very nice. And haddaad doonaysiin inaad gadatiin brusheskan, linkiga ayaan hoos kusoo qori doonaa brusheskan, exactly brusheskan aan haysto sa idinkuna iibsatiin. marka linka ayaa kala garanaysiin, waa iibsanaysiin. haddaad UK joogtiin waa iibsan kartiin, waa gadan kartiin. Europe haddaad joogtiin ma garanayo, laakiin I'm sure waa gadan kartiin. America iyo Canadana iyo meel kasta waa ka gadan kartiin. waxaa ka arki doontiin website-kooga I think, because inagu waan leenahay dukaan oo moofi, laakiin aan online baan ka iibsaday. because magaalada ma ku dhex yaalo, magaalo kale ku dhex yaala dukaankani. marka haddaad idinkuna doonaysa inaad gadatiin, linkiga ayaan hoose kusoo qori doonaa. kligaray linka, toos buu nii tusayaa brusheska aan haysto. waa brushes aad u cajiiba, marka iibsaday idinkuna. marka waan blend garanay si fiican. horta waa aad maasha allah very beautiful weeyaan. very 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 beautiful. waa blended as well. waxaa very muhiima qofku inuu eyeshadowgiisa blend gareeyo. ma loo baahan in la arko harsh lines wax la yiraahdo. inuu blended ahaado ayaa muhiima. marka waa aragteen baan umalinayaa glitterkii press glitter ee goldka uu soo yaro khafiif buu soo yaro noqday. marka waan ku celinaynaa glitterkii again. okay, again baan saa ugu dul celinaynaa. marka this time waxa weeyaan the last time aan ku celinayno suu si fiican markaa u muuqdo weeyaan. wallahi waxa weeyaan gold yaro cajiiba maasha allah. haddaad doonaysiina paletkan baa linkiga ayaan hoosta nigu soo qori doonaa. haddaad ka hesheen paletkan amba doonaysiina iibsatiin. aan waxaan ka iibsaday dukaan kale waayo, because ingiriiska ma lagu hayo. anigoo online baan ka iibsaday. marka linkiga hoosta ayaa nigu soo qori doonaa. anaan idinkuna marka waa gadan kartiin. waa kaas very beautiful maasha allah, very very beautiful. anigu horta maanta waan ka helayba maasha allah, maasha allah. okay waan dhameynay. indhihii waan dhameynay. usually saan yiriba eyeliner iyo wax kasta baan marsan lahaa imika liquid liner, laakiin waa simple makeup maanta. marka bes waxaan isticmaali doonaa waxaan baalaha indhaha baadadka indhaha ayaan soo gashananaa. horta mascara, maadaama uu yahay makeup fudud waa inaan saa ku daayo. mascara ayaan isticmaalay, laakiin eyelasheskaan marsananaa, eyelasheskaan gashananaa. I don't know, I feel really empty. indhahayga waxaan waa may iloobaba mascara keliya makeup waaba iloobay, laakiin waa qurxo. saasaa ku dayn kartiin haddaad doonaysiin mascara keliya ata maadaama makeup fudud yahay. laakiin haddaad doonaysiina lashes waa gashan kartiin. anigu horta lashes absolutely waa favoriteyga. aad baan ugu helaa lasheska, especially kuwa dramatiga. I love lashes, absolutely in love. waan ka hela, aad baan u jeclay lashes to the point waa anaa iibiya lashes. haddaad doonaysa inaad gadatiin lasheskayga ila soo xiriira insha allah. instagramka lasheskaygana hoosaan kusoo qori doonaa. ifolo garaya insha allah. laakiin maanta waxaan markaa eyelasheska ayaan soo gashan doonaa, waan igu soo noqon doonaa insha allah. okay, eyelasheskii baan soo gashtay. I hope you like. eyelasheskan anu horta aad baan uga helaa, is one of my favorite eyelashes. next marka waxaan doonaya inaan sameeyo eyelasheskii maadaama aan soo xiday. waxaan doonaya inta kuxul hoosta ayaan usually marsadaa oo madow, laakiin maanta waan skip garanayaa inta kuxusha only because I can't find it. waan waayay inta kuxushaydii. marka waxaan isticmaalayaa eyeshadowgii brownka ahaa ayaan hoosta isha hoostiisa marinayaa. marka brush yar baan isticmaalayaa oo indhaha hoostiisa xaggaas ayaan saa u marinayaa. marka waxaan soo qaadan doonaa muraayadeeda, saas hoosta ayaan hoosta u marinayaa. isha gudihiisa hadda maaha, waa hoostiisuun bes. aad buu irritate garayaa leh.
indhaha ayuu aad u qurxiyaa marka kalarkii dusha hoosta marista as well. I like it. It's very nice. And indha kuxusha wallahi, where's my indha kuxul? indha kuxushu maasha Allah indhaha wuxuu ka dhigaa very nice, especially makeup marka marisanaysid. indha kuxushu unbaa dadka qofka u haraa, and then makeupkii maasha Allah isku soo baxayaanba indhihii si fiican buu usoo qurux badnaanayaa. aad maanta oo dhan marinaysay eyeshadow iyo wax kasta aad marinaysay. marka haddana kalarkii baan hoos marinaynaa here uun saan u smudge gareeno. Okay, waa kaas very very beautiful masha Allah. And marka u dambeysa I don't think inaan u baahan yahay maanta. Okay, makeup fudud waan iloobayaan. makeup fudud weeyaan Sumaya maanta waa makeup fudud weeyaan. And marka waxaan u dambeysinayaa waxa weeyaan furuuraha iyo highlighterka. And highlighterka aan isticmaalayo waxaan isticmaalayaa highlighter very quick and easy oo palettekan ka helisid. paletkii aan ku isticmaalay contourka ayaan isagana highlighterka u isticmaalayaa. highlighter brushkii waa kan waxa weeyaan M501 highlighter brush, very good weyn brushkan horta waan ka helaa for highlighterka. cheekbonekay waa ka xaggan dusha boonkan yar umaan saa u dul marinayaa. I don't know inay idinkuna tihiin sidaas. ana horta highlighterka aad baan uga helaa. here baan sanka saa u dul marinayaa, and then xagga dusha ayaan saa u dul marinayaa. Okay, here un bas siduu leerku u bounce back gareeyo sida and dhinaca kale anu highlighterka aad baan uga helaa. commenta kusoo qora haddaa idinkuna highlighterka heshiin. highlighterka horta waa my best part ba aad baan ugu helaa highlighterka. markaas highlighterkii waan dhamaanay. marka waxaan oo hareemi karaa furuuraha inaan lipstick marsano. lipstick aan marsanayo maanta ma garanayo wallahi runta haddaan ii sheego. maadaamaan indhihii ka dhignay qurux garanayo. shall I go for gloss? waxaa leeyahay ma gloss baa marsataa iyo lip liner darka, ma lipstick baa marsataa, ma color yaroo qurux badan baa marsataa. laakiin maanta waxaan isticmaalaya u malaynaya gloss, lip liner iyo gloss, waayo indhihii baa too much too much maaha. laakiin waxaan doonaya dadku inay arkaan indhahayga more than my lips. marka lipsku waa la yarayaa and then indhaha la yar qurxiyaa. qofku inuu indhaha hadduu ka dhigo makeup khatara waa inuu furuuruhu yar ahaado a bit, you know, inuu yaraado oo isaguna dee inaan casaan ka digin maaha. marka I can't decide. I don't want to go for this color. waxaan isticmaalayaa bas gloss. Okay, lip liner iyo gloss baan isticmaalanaa. lip liner kan isticmaalna waxa weeyaan Morphe lip liner. lip linerku waa everyday baan isticmaalaa literally in badanna waan ka haystaa. waa Morphe, waa color aad u qurxoon, especially hablaheena Soomaalida aad buu ugu qurux badan yahay. marka waxaa la dhahaana trendsetter. shadeka linkiga hoosaan igu soo qori doona saa u iibsan kartiin idinkuna. marka waan line garanaya lipska, and then normal gloss oo dee aad any dukaan ka heli kartid baan clear gloss weeyaan ayaan isticmaalanaa. vitamin E yarna uu ku jiraa. marka that's very good. lip gel baan isticmaalanaa. intaasoo lip gloss iyo lipstick iyo lip liner iyo wax kasta aan hayo maanta waxaan doortay inaan gloss yar isticmaalo oon qurux kala digno lipska. marka
libiskan line garanayaa inaan qashiro ayuu u baahan yahay lip linerku. horta waxaan doonaa nagu soo kordhiyo hablo waxa weeye waxaan aan u bartay oo wallahi alxamdulillah qofkay barayna ma xasuusto, laakiin waxa weeye waxay yiraahdeen lip liner marka isticmaalaysid any qashiraad aad ku isticmaalin, waxa isticmaashaa qashiraada lagu talagalay lip linerka. any qashir hadaa isticmaasho any qashiraad hadaa isticmaashid lip linerkii uu sii dhamaanaya, horey buu usii dhamaanayaa. laakiin hadaa isticmaasho iminkan waa number 7 man iibsaday, qaalina uu ahaa, laakiin uu ku fiican yahay qofku inuu iibsado wax yaroo dee qaaliya oo si fiican hadduu kugu qashirayo dee productkii haysatayba in badan haysanaysaa. marka waa tip yaraan ii sheegayo ninkuna hada doonaysiin iibsada mid lagu talagalay lip linerska, qashiraad lagu talagalay lip linerska. any qashiraad lagu talagalay qalamaanta amba isticmaalina waxay isticmaashinka lagu talagalay makeupka, waayo in badan buu marka ku haynaya lip linerkaaga insha Allah. iyo markaste sharpen gare lip linerkaaga siduu si fiican u qurux badnaado markaa marsanaysid. waa difference hadduu balaa qashiraad yahay uu si fiican u marayo. kama markaa isticmaalaya gloss cusub weeyaan aan isticmaalin weli. I think waxaa farahayga isticmaalo waayo hadda toolagu noqon doonaa lipsiga oo dhan brown ma fiicno, waan naca markuu kalaro badan I can't do it. fruurtaygaan isticmaali karaa farahaygaan isticmaali karaa amba waan haystaa brushka lagu talagalay fruuraha, laakiin waan iska daynayaa. haka so simple haddaad doonaysiin in badan waa ku beerin kartiin lip glosska oo clearka ah, laakiin I think intaasaan ku daynayaa. uu iska noqdayba lipstick u gaar ah. waa kaas makeupkii. marka ugu dambeysa waxaan isticmaalayaa setting spray. marka setting sprayga amaanta isticmaala waxa weeye the dewy finish setting spray. setting spraygana waa aad buu fiican yahay because waa nix horta waa gadan kartiin. waxaan sameyn doonaa insha Allah linkska oo dhan baan hoos nagu soo qori doonaa, sida idinkuna markaa u iibsatiin amba haddaad doonaysiin iibsatiin online ka wada iibsatiin haddaa ka heshaan siduu makeupkayga noqday amba productyaashan aan aad u jeceliyo on so many years kuna noqdo every year soo iibsado. waa waxaan aan mostly haysto oo dhan hoosta ayaan igu soo qori doonaa xagga comment section, xagga descriptionka ayaan kusoo qori doonaa linkyada oo dhan, marka idinka xaggaasa ka iibsan kartiin. kan maadaama powdero badan isticmaalay waxaan doonaya inaan colorkii soo celiyo oo dee dewy noqdo, dewy finish wax la yidhaahdo oo engage, cause iminka ahaan waxaan yahay very engage oo powder baa imarsanaa. marka indhaha ayaan qarinayaa anan saasaan isku spray garan doonaa, waayo horta sprayga iyo eyelashesku ma fiicno, eyelasheska kaa dhici doona hadda. marka indhaha la qariyaa anan waan isku spray garayaa. okay marka waa kaa spraygii waa dry, wajigaygii ku qalalay baan u malaynayaa the right time. anu horta maasha Allah I love maantan makeupkan fudud aan sameeyey oo very easy ah, makeup aad u fudayda. idinkuna waa sameyn kartiin step by step haddaa follow garaysiin videogan. eyelasheskana saa loo gashay insha Allah futureka waan tusi doona haddaa doonaysiin xagga commentka iisoo sheegayna u baahantiin si loo gashto baadadka insha Allah. marka I hope you enjoyed this video and step by step I hope ina si fiican u barateen sida makeupka loo marsado ama sida makeupka easy ee fudaydka ah ku bixi kartidna waa ku bixi kartaa. waa very fudayd, waa very easy, very contour iyo wax yaroo very simple way no easy ah. anigu horta this is simple makeup for me, aniga waa very easy bay ii tahay and very simple bay ii tahay. marka idinkuna step by step haddaa u follow garaysiin insha Allah you will achieve this look. waa achieve garayn kartiin lookgan insha Allah. insha Allah waan igu soo noqon doonaa next week insha Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.